gudoomiyaha gobolka saaxil duqa magaalada Berbera iyo sidoo kale madax ka kala socotay hay'adaha laamaha dawladda ayaa maanta si wada jira u dhagax dhigay wada 2 kiiloomitir oo isku xidhi doonta magaalada Berbera iyo sidoo kale xaafadda magaalada cad ee dhinaca koonfureed ee Berbera. wadadan oo cabirkeedu u dhan yahay ilaa 2 kiiloomitir ayaa waxa hirgelin doonta dawladda hoose ee Berbera. waxda hawlaha guud iyo dhisidda wadooyinka ee dawladda hoose ee Berbera mas'uuliyiin afkeeda ku hadlayay ayaa waxay sheegeen inay dhameystiri doonaan inta sanadka ka hadhay wadadan cusub ee isku xidhi doonta xaafadda magaalada cad iyo suuqa magaalada Berbera. madaxda xaafadda magaalada cad iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan oo ka soo qayb gala dhagax dhig oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay wadadan isku xidhi doonta magaalada cad iyo suuqa taasoo ay dhibaato xoogan kala kulmi jireen bulshada ku dhaqan xaafadaasi. xogayaha fulinta dawladda hoose ee Berbera Cabdikariim Aadan Cadde iyo sidoo kale duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dawlad hoose ahaan ay dhameystiri doonaan mashaariicdii u qorshaysnayd sanadka sii dhamaanaya ee 2018. waxaanu ku sagooteynaa 2018 ka mashruucan oo maxay tahay 2 kiiloomitir ah xaafadda maxay tahay magaalada cad runtii waxaan oran karaa xaafadda magaalada cad waa xaafadda ugu nasiibka badan leh xaafadaha magaalada iyadoo xaafadii ugu dambeysay haddana imkaaniyaadkii maxay tahay iyo arrimihii hawlihii asaasiga ahaa intoodii badnayd inay 2 sano gudahood ugu dhamaato aad iyo aad bay ugu nasiib badan yihiin ma aha in degmadu oo kaliya wixii ay qabanaysa laga sugay qof walba itaalkiisa wixii uu qaban karo waa inuu aakhiradiisa si horeysiistaa waxyaabaha caamka ah ee ummadda ka dhaxeeya ay wadadu ka mid tahay markaanu dhisno aanu dhameystirno ilaashigeeda bulshada ayaa looga baahan yahay. ilaahay mahadii waynu ugu mahadnaqaynaa maamulka fulinta dawladda hoose waa ayaanaynu dheernahay gobolada kale jamhuuriyadda Soomaaliland waa nasiibaynu dheernahay. maanta waxa farxad u ah xaafadan Finland la yiraahdo oo qorshaha sanadka ugu jirtay wada 2 kiiloomitir inaynu dhagax dhigno waa qodobka koobaad. qodobka labaadna waxaan jecelnahay inaan bayaamino waxaanu arkaynaa dadka oo dhan waxay fahmayaan inaynu bishan ku jirnaa December tahay maantana 15 tahay oo sanadkii waxa ka harsanay tahay 15 casho waxa laga yaabaa dadka in badan inay isweydiiso wadada 2 kiiloomitir ee sanadka dabeeqadiisa la dhagax dhigayo maxay noqonaysaa macnaheedu waxaan doonayaa inaan bayaamino 2 kiiloomitir waxa ku jira qorshaha 2018 mana noqonayo kharashaad u wareegaya sanadka 2019. gudoomiyaha gobolka saaxil injineer Axmed Cusmaan Xasan oo isna gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa dawladda hoose ee Berbera ku bogaadiyay mashaariicda horumarineed ee ay ka hirgeliyeen gudaha Berbera. waxa weeye wax qabadkiina aad si wadaan oo ah kii ugu dambeeyay sanadka anoo arkay 15 cisho ka hadhay in miisaaniyadii hore ee ku jiray ay ku dhamaato halka saana isku dhex galin wax qabadka dambe ee sanadka hore loo qorshaystay runtii waana xilligeedii loogu talgalay oo dhacday. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera.